dabadeed muuse halkii baan ka xidhiidhnay taliyaha iyagiibu noqday in badan baan wada soconay saaxiib baan ahayn aadna waan isku maaragtay isku jeclayn muuse dhowr jeer booligaar baan noqdayba oo dee waan la socon jirayba cabdinogob uu ku dhaadan jirayba muuse markii berigaan xaggaa joognay aad baan isku jeclayn madaxweynaha maanta bade wax lagu iloobe garan maaye berigaa saaxiib baan ahayn aad ya markaa xaaladdu saasay ahayd halkaasi maalinta waan wasocnay nabarkaasi ugu dhacay muuse waan wasocnay balataabo nabarkaa gaari beebeeyaan saaraynoo dhakalaan ood iyo wax ood ballac banaan gallayo ood gaariyo nala jiray meel ood ah baalkaasi maalintuu igu go'day laan oo sayla meel la yidhaahdo nala dhex qaaday muuse wuu nala saaraa kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaal waa barnaamij cusub oo aan ugu magac darnay markhaatiga nool kaasi oo aanu kaga hadli doonno waayihii ay soo mareen mujaahidiintii xoraysay dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ku duugan taariikho badan oo ka qarsoon oo dahabiya sidii uu ku bilaabmay halgankii lagu bilaabay dib u xoreynta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland halkuu ka bilaabmay yaa bilaabay iyo sidii uu ku bilaabmay iyo waayihii uu soo maray halgankii haddii WSLF loo oran jiray ee Soomaali galbeed ee ka qayb qaadatay 1977 weerarkii lagu qaaday dawladda Itoobiya waxa ku duugan taariikhdii ay ku kala jabeen jabhaddii WSLF waxa ku duugan taariikh dahabi oo ah sida ay ku bilaabantay jabhaddii afraad oo dhashay SNM 1981 maanta waxaanu ku macsuunay oo hortiina fadhiya mid ka mid ah mujaahidiintii ku soo tacabeelay halgankii dalka lagu xareeyay oo hortiina fadhiya ayaa waxaan weydiin doonaa magaciisa oo saddexan iyo halka uu ku dhashay iyo sidii uu halganka ku bilaabay iyo goortii uu bilaabay isaga ayaan ku wareejinayaa inuu inala wadaago taariikh kooban oo ka hadlaysa goobta uu ku dhashay magaciisa oo saddexan goortii uu halganka ku bilaabay ku soo dhawow markaan kaaga warramo waxaan ku dhashay anigu toga faafaneed hase ahaatee reerku wuxuu yaallay reerka iyagu tarar toga tarareed buu yaalla jigjiga agteeda da'daydu waxa weeye ilaa 65 qiyaasta kama yara iminka halkanka waxaa bilaabay anigoo 18 jira shabadihii Soomaali galbeed la isku oran jiray ayaana xoolo jiray raafay oo ilaa 18 jira sidii aan taa ugu la dagaalamayay ayay laxda ku xumaatay oo markaa dagaankii aan markaa joognay ayaa si soo xun loola dhaqmay labadii jabado waan kala booday markaa anu cagneedkaan raacay markaa oo dee reerkaa xagga ahaa labadii cagneedka markaan kala waxaysanay labadii cagneedkaan oo xaggaa u raacay hase yeesho markii ay afraad talowday oolkii afraad baan anu kusoo biiray 83 marka taariikhdu markiisii yaan kusoo biiray anugu qoladu waxay bixisanaanay cabdinogob bay yidhaahdo dee agaba maadaama daaroodkii dhalay agal igama karayn agabaan oran jirgaasi halkan waaba nogoba magacayga waxaa la yidhahaa cabdi ciise cali laakiin cabdinogob baan iminka ku magac dheerahay taariikhda halkaasaan ka bilaabay tii eslamta 83 ilaa hadda dee maalkii aan qaaday sidii baan ula taaganay ilmkana sidii horaan joogaa waan ku dhabeelayba taariikhdu horta halkaasi ka soo bilaabantay afraad ururku markaa ciddii uu ahaa dee afraad baan inta iyadaasi ahayn afraadna duryaan ugu imid markaa durye ahaydoo afraad baan isku odhan jiray markaa isal markaa mayan jirin afraad oo keliya ahayd
isla markaa halkaas ka soo bilaabatay xabad riideedu marka la leeyahay xabad la shido taariikhdeedu horta halkaas ka soo bilaabatay isla marka la leeyahay meel xabad laga shido oo laga hor yimaado dowladdii siyaad bare taasaa ugu horreysay waa taariikh laakiin dee imika taariikhaha meelo aanaan garanayn baaba hooyadii sanam iyo meelo kale baan ku maqlaaba hadda 80kii halkii lagu sharay baan ku maqlaaba 80 markaan dalka soo galaynay meeshii cabdiraxmaan lagu doortay ayaa imika hooyadii sanam laga dhigaa laakiin hooyadii sanam sida dhabtaa waxa weeyaan duriya cabdiyow jabhaddii WSLF loo yaqaanay waxaan u sharaxi doonaa dadka ina daawanaya oo 30 jira ama da'dii aan waaga dhalanahayn oo bal aan taariikhda aan garanayn jabhadda WSLF sidii loo aasaasay ciddii loo sameeyay inay weerarto markii lagu hungoobay ciddii ay weerartay ay ka adkaatay halkii ay ka dhigatay xarumaha wixii ay ka sameeyeen iyo sidii loo kala jabay jabhaddii ku midaysnayd beelaha isaaqa beelaha samaroonka iyo daaroodkii ama ogaadanka loo yaqaanay sidii loo kala jabay sababtii keentay kala jabka iyo aakhirkii bal siday afraad ku bilaabantay wax yar ka taataabo horta waa si wanaagsan waxa weeyaan horta kelmadan aad weydiisay say ku kala jabtay waxay ahayd Soomaali galbeed iyo la soo jeeday xaggaas loo jeeday markaa hasa yeeshee saldhigga meeshii uu ahaa ee deegaankeedu hayday yaa lagu kala jabay ay maaragtay ay xuma kula kaceen waa deegaankan rootiintan badan imika wataala wixii ka sareeya ayaa loo badnaaday gobolkay iyo hareerayda oo waliba gaasay inta badan lagu kala dhintay gobolkay waana meelihii ay maaragtay saldhigga uu ahaa dadkii soo wada dhaqmayeen markii ummadii ay qaadan weyday ayaa lagu kacay badii Soomaali galbeed qoladii kale ku dhex jirteen waa ka baxday markaa ee isaaqayda meesha joogtay afraad sida ku aasaasantay sidaas ayadoo way kala boodeen waa maadsantahay cabdiweyne su'aasha kale ku weydiinaya waxa weeye cabdow way kala horreysay baan maqlay SNM iyo afraad bal siday u kala horreysay waa taaban doontaa xarumihii adigu aad kala bilowday halganka jabhaddii afraad markii aad kala baxdeen jabhaddii Soomaali galbeed iyo ogaadeen halkii aad ka bilowdeen halganka iyo ciddii aad wada bilowdeen halganka cid aad ka garanayso bal wax yar ka taataaba cabdo horta waa si wanaagsan halganka qoladii bariya aan ugu imida waaweyn imika cid kama joogto way dhamaadeenba qoladan bariga ugu imid waxa weeyaan imika Sandheere iyo Cabdilaahi Ibrahim iyo qoladaas imika joogta qoladii aan bariga aan ugu imid duriyayna ay meeshan maaragta aan markaa ugu imid duriya intii ay islam ay ahayd duriya ilaa Rabaso inta u dhaxaysa dhawaan ka dagaalamo waan joogay anigu laakiin asaaskaygu duriya aniga markaan ugu imid 83 waad mahadsantahay cabdiweyne su'aasha kale aan u baan maanta fursadan aan u helay in doonayay inaan ku weydiiyo waxa weeye cabdiyow dagaaladii ugu baanaa ee aad gasheen wax ma ka xasuusan kartaa maanta iyo meelihii aad ka gasheen waxa kale oo ku weydiin lahaa waxa igu maqaalaa inaad ka qayb gashay dagaalkii ugu baanaa ee loo oran jiray aakhiro guurkii 1984 sidoo kale waxa igu maqaalaa inaad mujaahid Ali Yusuf Ali Gurey oo maanta nool xaya iyo mujaahid Allah u naxariistay Axmed Sheekh oo loo ku magac dheeraa dhuxul ad u wada dhaadhacdeen buuraleyda ka hooseysa Gabiley ilaa Awdal ilaa Hargeysa hoosteeda bal dagaalada iyo sidii aad u gasheen iyo waayihii ka qabsaday iyo sidii markii la soo jabiyay
jabhaddii SNM gashay buuraha ka hooseeya Gabiley iyo Boorame iyo Hargeysa intii idinkaga dhimatay iyo sidii aad uga badbaadeen intiinii baaqiga ahaa bal waayihii aad ka soo maray iyo raggii aad ka garanayso bal hadda dulmar wax weeyaan haddii aad weydiisay dagaalka dee aakhirka buuraha waxaan ka galay horta anagu qolooyada galbeed waxaan ka galay awbaraan ka galay anagu dagaalkii ugu horeeyay buuraha markaan aan galay cadcad meesha la yidhaa ayaan ka bilaabnay horta dagaalka raggii ugu horeeyay halkaasoo nagaga dhintay cadcad markaan ka bilownay buurihii waan ku soo soconay buur dheer oo la yidhaha shalow dheeray wax la yidhaha ma garanayna buur dheer baan galay anagu markaa oo ceel badaala ka sarreysa buurtaasi maalintii dambe hubiyaan laga saaray markaa hubiyo gam laga dhigay alla naxariistee luxud baa markaa annaga uurkaan markaa aanu ka tirsanaa luxud baa watay oo wixii qolo walba meesha ku agaagsan tahay annaga buurii fuusan unug walba meesha ku agaagsan tahay ka dhaadhacdo xoog waynan gudoomiye buurta isaa ugu xeersanaayeen 84 yaa waxa weeyaan horta buurta aan ku sheegaynaan galay waxaana watay horta qofkii ugu horreysay ciidanka dee waxaa watay cabdilaahi askar ha watee haddana dee ururaan kala ahayn annagu 3 urur baan ahaynoo 3da urur mid luxul baa watay midna cabdilaahi ibraahim baa watoo dee imika nimankii ka noolba midna daawud baa watay daawud oo ninkaa daawud daahir baa loodhan jiray ninka uu dhintay waa la naxariistay dabadeed anugu ururka waxaan ahaa anugu kooxdan luxul wataan ahaa markaa habeennimadii markii buurihii aan gallay kooxdaa uu ka midka ahaa luxul baa la watay nin walba meeshii aad ku agaagsan tahay xoog ku barnaaysu yidhi caawa kolkuu hubiyihii gam naga dhigay ee rag badan meeshii laga laayay isla habeenkii qoladii markaa xoog ku dhaaftay dhaadhacday baan anugu nasiib wanaag ayaan noqday hase yeeshee dee waan isdhex galoo waxba waan kala garan waayo sidii loodin baan gudoodo cid walba sidaan baan ugu sheegnay gooni baan u baxay baanu markaa 7 baan markaa aanu ciidankii kaga dambeeyeyba buurihii dambe 7 baan ka dagaalamayay keliyey buuraha kii ciidankii wax dhintay iyo wax soo baxday noqday dabadeed aakhirkii ilaahay uu soo badbaadiyey xabashidiisaan meelihii socsadun baan oo barrii minowdii xabashidan aan ku wareelay dabadeed ilaahay horta sidii buu igu soo badbaadiyey aniga sakaraad anigoo ahoo isle mala dee naftu ay kaa baxaysaa habeenada qaarkood ayaan dambaabay waan yidhi ilaahiyo cali bawle buu yidhi caawa habeenkaas waan dambaabay laakiin ilaahay dee biyihiisi dhib yar buu siiyo sallaxuma biyihiisaa uga soo boodeen buurii aan dul socsocday ilaahay baa markaa i waraabiyey laakiin waan dambaabay oo haddaan qof bini aadan iyo garab dhigay ee ilaahay horta ilaahay sidaas ugu soo badbaadiyey berigaasana igu darayd aakhirkii berigaa buuraha ayaa horta dhibaato ani aad ugu daraa horta ilaa imikadona dagaalku ku jirta laakiin taasi tawayga xumeed ma arag cabdow mujaahidiintii kale ee markii aad soo badbaaday ee aad ku noqotay deegaankii duulimaadka aad ka soo qaadeen ee hawdka seferia iyo duriya iyo qabri macalin iyo dhulkii markii aad ku noqotay mujaahidiintii waaweynaaye deegaanka iyaad ka garanaysaa maanta aad ka magac dhabi karaysaa kolkaa waxaa naga dhintay uun oo la qabtay baalkaa ciidankayga halkaa galay nimankii markaa la watay waxaa la qabtay uun daawud laakiin intayadii kale waan badbaadin oo ugu tagay meeshii hadday dhuxul tahay hadday maxamed jaamac tahay hadday cabdilaahi ibraahim tahay wixii yaa macduusweyneegii iminka xaggan ku dhintay yaa ciidan ku badnaa laakiin waxaan ku idhi
halkan sandheeraba waan u socday markaasoo qoladan meesha socotay ka mid ahaa ayna wadatay yaa ciidankii markaa imika madadkiisu dee imika dabeelwalbu waa dhintay laakiin markaa ciidan badanoo waaweyn way kugeen laakiin imika wax yarbaa cabdiyow haddii aan in yaro oo guud mara ku noqonno waxaad carrabaabtay inaad 7 cisho ku 984 aakhira guurkii aad ku go'doontay oo ciidankii kala lunteen qaar dhinteen qaar loo qabtay qaarna la kala bay hoofay way 7 cisho ee ay kuugu darayd misaad qaday halkeed u dhaxday maxaa waaya ka soo qabsaday oo waxa weeyaan waa runtaa intan aan meesha joogay aan joogay 7 maalmood horta ma biyo mise wax baada biyo baan deemeelaha ilaahay ku baa meel iga siinay laakiin wax baado waxa igu horeeyay habeen baan siday 2 aqal wallahi 2 aqal dacaawa hadii wax ku siin waayeen qasab kaga dhig ku laaba madiyon ka bixin aqalkan 2 aqal baan wal fadhiistay qoriyo minka waxaan cuna keenay qori nuuceed markaas siitay qori bay keenay siitay سلسلة كوري تبي يضحنا لأشياء كاسدوا معاو وحبسين وياه لابا أنا بدي بستي أقاطو إلهي شيء كاسي شيء بنكسب بهايو يجوا حولك شيء أي إلهي لكم لي خيركم حوابا ده نكتب وسير عليه هالكاس الله يديك ياهو ده ما آمين يجي si ay jiman halka ka soo qaadan halkaas la dhigdhigayo inta soo qaataan halkan ku cunaya ma garanaysa dibadii reerkii marqiyar iyo wuxuu keenay hilib shaana wala keenay reerka la daawud anigu ciidankii baan ku ogaayay reerka ii sheegay buu daawud la qabtayna reerkan sabroon buu ayo daawud daahir in la qabtay iyaga reerkaas ay sheegay aniga yaa abtigii baa qabtay bay ahaayeen markaa yaa reerkaasi abeenkaa ilaahay reerkaa ii bixiyey intii ka dambeysay waxba ma helinba abeenka ma jal qaatay intii dambe waxba biyo mooye waxba uma baahanba waa si qablaynayo dabadeed sidaan meelihii u socday 7 kaasi habeenkaasaan wax cunay aan ku jiray meesha biyo mooyaane أنتو حبيبي كاسو كلام واحد أنتان لا شيء حبيبي كاسو مني يا لكن أو برا ما كان أميد سيدا أو برا بس ده هرتا هلكن بدأنا الوطن لا ميدلي حقن ده لا ميد ملها برجع لا ميد ملها موقت قلبيت كان لا ميد كتلو ما سرها يو لا ميد بوان وعيب حقن لا ميد ملها ينو سنان جلّا مي بعد كاهو رئيس وهاي المليو قبل ما أبصر قلي قم ثم بقول هذا أبيني بو يا هبين شيء عقبال بأنا كاس كمان شيء نملاس وقبلي هبين شيء عقبال بأنا كاس لكن ما لين وان ملا مل أنسات تيجا أنا لا أقول بورا يعني تفورا جيدا قال يموت أنا وقت تايدان قوة يقوم بكل حبا شيء أنا قصتي حبا شيء ويشود ويشي أو برا لما بين بيجوا ينو وان تلقي بدي اللي نقول أنا كلا قايو وحبا معمل ينلي وتضبط كاسان يانا وحبا من موت كل واحد يقول يبقى يجا حبا شيء أو كلا يقول لما بين بيجوا شيء مركا أنا وحنا لا شيء دير عيد كينو مركا إسلامتو عيد بنجي على شيء دير وكي يتم بيسا ما كلمس وجا أو برهم بكي يتم بيسا شيء دير ولا كمان أنا مركا شيء دير بيجي مركا أنت أي لا به بين هايين أي شيء دير كينو شيء دير بعد أيام عيدك اللي قلت تطبع بحن كور بل بال حنانين ينو نقول جايين وجو أيبا وحتى هذه وحن كور وان لما أيبا وان خلي وريق وحقنا تام بحل ما بس نقولين خلي وريق بيقول عيبا أنا قلت يبا وح أصغر له
yaa cabdiyow waxaa igu maqaalaa inaad ku soo gaadheen jabhaddii iyo dib u xoreyntii dalka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse bixi cabdi goormaad isbarateen madaxweynaha intii uu mujaahidka ahaa halkeed sa isku barateen bal taariikhdaa soo yaro koob horta waa runtahay waxaan ku baranay madaxweynuhu wuxuu soo tallaabay 85kii buu soo tallaabay markii aan anaguna buuraha ka soo baxnay dabadeed baashiyo aan bays ahayn dibiile anagu duriye bays ma ahayn afraad ma ahay markaasoo dibiile wixii baaqee soo haray baaqee buuraha ka soo baxay duriye ma nimid bays waa saldhig buu duriyaa saldhig noo ahayd marka hore waan ballaadhinoo intaan iskaga soo baxnay baan nimid dibiile qolayadii afraad dibiile oo markaa aan bays ahayn xabashadu degan tahay ayaan dhex degnay qolayadii afraad xabashadii raasmeyna soo bays baan halkaa ka dhignayba waxaan ka dhignayba saldhig bay oo saldhig caadi ama ka dhignay markaa dabadeed sidii halkaasi anagoo degan ayaa muusuu soo tallaabay anu markaa buuraa markaan ka soo baxnay waan dhaawacmay anugu lugtana tabtayoo waxa la geeyey ilaa adiis muuse aanoon kaga tegin markaa xerada oo dhuxul iyo maxamed jaamaciya haystaan ayaan anugu aan dhaawacmoo dee waxa la geeyey dee isbitaal yaan ku maqnaa muuse oo ciidan la keenay oo ciidanka haysta ayaan markaa anigu isbitaal ka soo baxay yaa inaan isbitaal ka soo baxo aan ugu dibiile saldhigu markaa waa saldhigan dibiile soo anagan bays ka dhignay bayskan dibiile ciidankii aan halkan ciidan aan ku soo ururay dibiile maanaan bays ka dhigno imika saldhig ahayn saldhig weynoo wuxuu noqday ciidanka laga maamulo oo yaa dibiile markaa isagoo haysta ayaan anagu yaan ugu imid oon ka soo baxay markaa isbitaalka dabadeed muuse halkii baan ka xidhiidhnay taliyaha iyagiibuu noqday in badan baan wada soconay saaxiib baan ahayn aadna waan isku maaragtay isku jeclayn muuse dhowr jeer booligaal baan noqdayba oo dee waan la socon jirayba cabdinogob uu ku dhaadan jirayba muuse markii berigaan xaggaa joognay aad baan isku jeclayn madaxweynaha maanta bade wax lagu iloobe garan maaye berigaa saaxiib baan ahayn aad yaa markaa xaaladdu saasa ahayd cabdi ciise cabdinogob imika maxaad ka shaqaysaa imikada lafteeda askarigii baan ahay askari ka tirsan ciidanka qaranka jiida hore oo ku indhabeelay imika halkaasoo meelahan iska yar joogay imika indhahana la qalay indhaha la jeexayba cabdow cabdinogob maxaad gabagabada ka codsan lahayd madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan maadaama uu ahaa nin saaxiiba ood halgan soo wada gasheen meel soo wada seexateen dhaaboogii xabashida xabashidu siin jiray ee sanamta aad soo wada cunteen geed wada seexateen macal halkaasi maalinta waan wasocnay nabarkaasi buu dhacay muuse waan wasocnay balada taabo nabarkaa gaari beebeeyaan saarraynoo dhakalaan ood iyo wax ood ballaca banaan gallayoo ood gaariyo nala jiray meel ood ah baalkaasi maalintuu igu go'day laan oo sayla meel la yidhaha nala dhex qaaday muuse wuu nala saaraa yaa cabdow maanta oo ay bishu tahay 19 bishii shanaad
ama 19 bishii May 19 bishii May 2022 xalay iyo shalay waxa wadanka laga xusay 18 May dib u soo noqoshadii xorriyadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gooniisu taageedii oo ay ka soo wareegtay 30 guuro xalay iyo shalay ku beegnay ragii wadankan guusheeda iyo dibteeda u soo maray baad kamid ahay saaxiibka Muuse Biixi Cabdi oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland adduunka maanta waxa lagu wada xiriiraa waa aaladaha ama waraysi ama waxaan horumarka lagu gaaray technology-ga loo yaqaan haddii codkaagu maanta gaaro madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo uu nasiib u yeelato inuu daawado barnaamijka laga duubay taariikhda ku saabsan markhaatiga nool iyo maxaad u soo joogtay halkankii dalka lagu xoreeyay maxaad ka codsan lahayd madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan ku codsan lahaa wada halkan waan soo wada maroo halkan adag baan soo maray hase yeeshee aniga in baa ii dheeraydo waxa ii dheeraad anu nin ku dhashay baan ahaa halkan beer iyo bartoon kuma lahayn waxaan ku dhashay faafan dadkan yani markii aan jabada ahayn dadkii la dhibaataynayay umbaan danqaday oo aan xaggan ku soo biiray beer kumelihi boot ma aragtay de meel imika ma aragtay degaana ma iyo de xitaa waxaan ku lahayn balood marka waxaan ka codsan lahaa imika haddii ay gaadho yaa inuu si wanaagsan i qacan qabto waxay qabtaan doonaya yaa kowri darajadii la bixiyeyna waxaan ka qaatay dee hawsh la soo tuuray ee maaragtay aan islahayn waxbaa dee idinkaa maaragtay qacanta ayaa laydin guujinaya qoladii soo halgantay dee waba nala yar jinqiyo dib un baan nala yar waxeeyo imika 3 xalig baan leeyahay oo halkii aan meeshii aan islahaa waad haabanaysaayoo dee sargaal weyn baad noqonaysaa ama yaa lugta un baa nalagu riixo imika ninkaygii hawshaasoo dhan soo maray 3 xalig baan leeyahay yaa cabdiyow su-aal baan ku weydiinaya dadku ay tabayaan ama dadka barnaamijkan doobanaya ay aad u tabayaan oo isweydiin doonaan cabdi waan kula kaftamay hadalkaagu wuxuu u eegyahay dadka degan jarar iyo maaragtay banka faafaneed adigu horta dadku ay ogaayaan tuhun baxaan codkaaga oo loo malaynayo inaad tahay reer jarareed ama deegaankaa faafaneed bal u sheeg ciddaa tahay adigu horta dadka ku daawan doona ciddaan ahay waa ciddaa aan u soo gurmaday weeyaan dee dhibaatadan la qaybsaday hawshana aan u fuliyo waad garanaysaa dee ilaa nimka waan iska joogi lahaayona ilayu baan ciidankaa baan noqon lahaayoo waxaan aan dhex boodi lahaay waxaa halkan marka horena aan u danqaday dadkii la dhibaataynayey ee aan tii uga soo hadhay cagdheerta xaggan ugu biireen dagaalka la galay iyaga de waxa weeyaan waa hayb weeyaan dee waxay soo raaciyey yaa haddii aanan haybta ahayn dee kuwa xaggaa u yaacay maan kamid ahaan lahay waxaan dee xaggan ugu soo noqday aan u xasuusteen dadkan bal dadkan u gurmo oo waxaan maaragtay awadaan la qaybso waxaan u dhiba dee waxa weeyaan hawshaa dee iga dhaxaysa dee maaragtay dhalashada barnaamijkan waxaa daadihinaya anigoo ah wariye Cismaan Cabdi Bade suxufiga lagu magac leeyahay ama qalinka soo jeeda waa farsamadii iyo duubistii Cabdisalaan Maxamed Bade tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kala oo aynu ku wareysan doono markhaatiga nool waa aniga oo ah Cismaan Cabdi Bade iyo farsamadii Cabdisalaan Maxamed Bade iyo duubistiisii kulanti dambe oo wacan